السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نخرت كحنا شرالكنا أحمد دار قدني كسو دواد مقال عصب maanta muuqaalku ma dheera balse waxay ka hadlaysaa arrin aad inoo saameystay taasoo ka dhigan dulmiga lagu wado culimada. maalintii jimcaha dalka Sacuudiga waxa ka dhacay in sheekh amaba oday maxaadiradii jimcaha jeedinaya kana hadlayay yahuudda iyo fasaadkii dhulka ka wadaan in lagu xiray waliba si aan macquul ahayn loola dhaqmay oo xitaa aan loo naxariisan. dadka saas sameynayana waa dadkii masaajidka ilaalinayay oo ay ku jiraan askartii iyo kuwii kale maamulayayba. taas waxay ku tusinaysaa in munaafiqiintu ku bateen balse xitaa ay wala jiraan masaajidka dhexdiisa oo aysan dadkiiba la kala garanayn. Allah waxaan ka baryaynaa in Allah uu ka soo furdaamiyo sheekhaas iyo caalimkaas, sidoo kalena waxaan ka baryaynaa in uu dadka ka qabto munaafiqiinta. waxaan filayaa waxaan kaga faa'iideeyay mowduucani maanta intaas ayay nagu eg tahay. inta ku kulmi doono mowduucan lamida waxaa idinkaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.